waxaa mar kale maanta fashilmay gebi ahaanba shirkii golaha mustaqbalka iyo sidoo kale madaxda dowladda federaalk soomaaliya oo qorshaha uu ahaa inuu ka qabsoomo villa soomaaliya. waxaan kula wadaagi doonaa sababta rasmiga ah ee shirka fashilisay iyo sidoo kale shuruudo adag oo madaxweynayaasha jubbaland iyo sidoo kale puntland ay ku xireen ama ay hordhigeen madaxweyne xasan sheekh maxamuud, taasi oo keentay in shirka maanta loo ballansanaa uu gebi ahaanba markaasi fashil ku yimaado. soo dhowdaa wadaadeen tahay booqashadaadi ugu horreysay kaalmooyin media nagu soo bir calaamada subscribe-ka taabo muuqaalka like aragtidaada qaybta faallada ku dhiiba. suuragal ma tahay in dhinacyada miiska wadahadalka mar kale ay ku soo laabtaan oo heshiis rasmi ah ay gaaraan? waa hagaagi. waxaa mar kale maalintii labaad oo xiriir ah gebi ahaanba baaqday shirkii loo ballansanaa inuu ka qabsoomo villa soomaaliya ee u dhexeeyey madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo xubnaha golaha mustaqbalka, kaasoo khamiistii ka furmay villa soomaaliya, iyagoo dhinacyada markaasi ay doonayaan inay ka wada hadlaan arrimaha ismariwaaga uu ka taagan yahay ee doorashooyinkii wax ka beddelka dastuurka. shirka oo lagu waday in dib loo sii ambaqaado maanta oo sabtiya ayaa mar kale baaqday, waxaana maalintii labaad iyada oo aan sababta markaasi la sheegin dood adag ay weli ka taagan tahay qodobada qaar. waxaana haatan socdo markaasi wada tashiyo ay wadaan mucaaradka oo iyagu markaasi wada kulamo gaargaara oo ay kaga arrinsanayaan ajandayaasha ay miiska la tegayaan. wararka ayaa sheegaya in ay guuldareysteen isku dayo markaasi la doonayey ka hor miiska wadahadalka ee villa soomaaliya in la gaaro is-afgarad u dhexeeya dowladda federaalk soomaaliya iyo sidoo kale golaha mustaqbalka, waxaana jira ismariwaa xoogan oo labada dhinac weli u dhexeeya. siday ogaatay kaalmooy media, kooxda madaxtooyada soomaaliya ayaa iyadu ku adkeysanaysa hanaankeeda doorashooyin qof iyo cod ah oo ka dhaca dowladaha hoose, halka xubnaha golaha mustaqbalkana ay doonayaan in doorashooyin dadban marka hore laga qabto dowlad goboleedyada aan doorashooyinka gelina kadib dowladda dhexe la qabto ka hor 15 bisha May. dhanka kale, gelinka hore ee maanta oo sabti ah ayaa golaha mustaqbalka waxa ay yeelanayaan shir duceedyo ay kaga doodayaan qorshahooda doorashooyinka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada, gaar ahaan koonfur galbeed, galmudug iyo sidoo kale hirshabelle oo iyagu mar hore madaxdooda uu ka dhammaaday muddo xileedkooda welina markaasi sii jooga xafiiska. si kastaba, ilaa hadda markaasi waxaa laga wada hadlayo keliya waa doorashooyinka dalka, waxaana weli markaasi harsan arrinta dastuurka oo iyana dood xoogan ay ka qabaan jubbaland, puntland iyo sidoo kale madaxda markaasi mucaaradka ee golaha mustaqbalka. hase yeeshee villa soomaaliya ayaa dhankeeda weli dadaal xoogan ku bixinaysa sidii ay usoo gabagabayn lahayd wax ka beddelka dastuurka oo ay ku howlan tahay. golaha mustaqbalka ayaa hadda sii wada kulamadooda, waxaana habeennimadii xalay ahayd ay yeesheen shir muhiima oo ka dhacay xindaabka xalane, iyaga oo isku raacay in shirka loo ballansan yahay ee villa soomaaliya ee maanta baaqday loo diro maalinta xigta ee shirkaasi uu dhacayo madaxweynaha puntland siciid cabdullaahi deni, madaxweyne hore shariif sheekh axmed, ra-iisul wasaare hore xasan cali kheyre, xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame iyo sidoo kale xildhibaan cabdulaahi carab oo iyagu golaha mustaqbalka ku matali doona shirka soo socda ee markaasi ay la yeelan doonaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud, maadaama qorshaha uu ahaa in maanta uu qabsoomo. xubnahan markaasi la iska soo xuleen golaha mustaqbalka ayaa iyagu madaxweyne xasan sheekh maxamuud kala hadli doono ajandayaal, iyagoo la gaari doono heshiis is-afgarada ka hor inta markaasi miiska wadahadalka aysan si buuxda u tagin golaha mustaqbalka. madaxda mucaaradka ayaa weli u muuqda inay dadaal xoogan ku bixinayaan sidii madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo kooxdiisa villa soomaaliya ay ugu qancin lahaayeen in dalka la geliyo doorashooyin lagana bilaabo dowlad goboleedyada muddo dhaafka, kadibna intaan la gaarin 15 bisha May la qabto doorashada dowladda federaalk soomaaliya. waxaa golaha mustaqbalka marka la fiiriyo ay si xoogan markaasi waqti iyo dadaal ugu bixinayaan sidii looga heshiin lahaa arrimaha doorashooyinka, gaar ahaan midda dowlad goboleedyada muddo dhaafka iyo sidoo kale midda federaalka oo iyagu u arkaan inay tahay mid muhiima. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa dhankiisa u muuqda inuu si weyn uga cagajiidayo in doorashooyin dadban ay ka dhacaan dowlad goboleedyada galmudug, hirshabelle iyo koonfur galbeed. shirkii khamiista ayaa ila markaasi u warramay kaalmooy media waxay xaqiijinayaan in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu si cad ugu sheegay golaha mustaqbalka inaysan wax door ah ama shaqaah ku lahayn doorashooyinka ka dhacaya dowlad goboleedyada saddexda ah ee la safan villa soomaaliya, isagoo sheegay in aysan wax boosa uga bannaanayn inay ka hadlaan doorashooyinka dowlad goboleedyadaasi, balse ay ka hadli karaan oo keliya doorashooyinka dowladda dhexe ama dowladda federaalk soomaaliya, arrimaha dastuurka, ammaanka iyo sidoo kale midnimada. laakiin loo baahan yahay in gebi ahaanba ay meel iska dhigaan damacooda ku aadan in ay wax ka dhahaan ama ay ka hadlaan doorashooyinka dowlad goboleedyada galmudug, hirshabelle iyo sidoo kale koonfur galbeed oo madaxdooda muddo dhaaf ay kuraasta weli ku joogaan.
madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa markaasi kulankii maanta ee sabtida ay u ballansanaayeen golaha mustaqbalka sida lasoo warinayo u baaqday shuruudo adag oo ka yimid madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni madaxweynaha dowladda puntland siciid cabdulaahi deni ayaa sheegay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud marka xigta ay la fariisanayaan keliya ay ka wada hadlayaan arrimaha doorashooyinka isla markaana doorashooyinka ay noqonayaan kuwa dhinacyada heshiis ay ku yihiin oo gebi ahaanba la joojinayo doorashooyinka tooska ah ee filla soomaaliya wakhtigan ay ku howlan tahay siciid cabdulaahi deni waxa uu yidhi doorashooyinka tooska ah ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku doodayo in ay dalka ka socdaan yaa ka qaybgelaya ayuu yidhi aawey madaxweyne shariif aawey madaxweynayaashii hore ee dalka soo maray ra-iisul wasaareyaal hore aawey madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ra-iisul wasaare xasan cali kheyre cabdiraxmaan cabdishakuur warsame cabdi faarax shirdoon saaci maxamed xuseen roble dhammaan doorashooyin ay ka maqan yihiin xubnahaasi sidee ayaa loo dhihi karaa waa doorashooyin loo dhan yahay oo dalka ka qabsoomayo ilaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ogolaado in doorashooyinka uu dhulka soo dhiga islamarkaana laga wada hadlo kadibna lagu heshiiyo doorashooyin loo dhan yahay nooc ay doonaanba ha noqdaane madaxweyne xasan sheekh maxamuud mar kale lama fariisanayna ayuu yidhi wakhtina kuma luminayn waxa uu doonaya keliya waa in markaasi wakhti dheeraysi iyo cagajiid markaasi uu sameeyo si muddaxileed dheeraada markaasi uu helo ama wakhti kororsiga dadban uu u samaysto madaxweynaha dowladda puntland siciid cabdulaahi deni ayaa u muuqdo markaasi nin aad mowqifkiisa uu adag yahay islamarkaana cadaadiska ugu badan ee madaxweyne xasan uu la kulmayo oo kaga imaanayo dhinaca kale madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam ayaa isaguna qaatay mowqif la mid ah midka madaxweyne siciid cabdulaahi deni uu horey markaasi u qaatay mucaaradka ayaa si xoogan markaasi iyagu u muuqda inay dadaal xoogan ugu bixinayaan sida madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu aqbali lahaa in doorashooyin dadban ay ka dhacaan dowlad goboleedyada saddexda ah ee la safan filla soomaaliya ee mudandhaafka kuraasta ay ku joogaan madaxdooda sidoo kale doorashada markaasi dowladda federaalk soomaaliyana ay noqoto doorasho heshiis lagu yahay oo aan ahayn midda wakhtigan ay wado filla soomaaliya weli waxaa taagan ismariwaa xoogan shirkii maanta oo sabti ah ayaana waxa uu u baaqday markaasi ismariwaaga dhinacyadan weli ka dhex taagan iyo shuruudaha adag ee madaxda dowlad goboleedyada puntland iyo sidoo kale jubbaland iyo xubnaha kale golaha mustaqbalka ay maanta markaasi miis ka soo saareen waa maalinkii labaad shalay oo jimca ayay ballantu ahayd markaasi in xubnahan layska soo xulayn golaha mustaqbalka iyo sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay kulmaan laakiin waa uu baaqday mar kale maalinkii labaad oo maanta oo sabti ah ayuuna markaasi baaqday waxaana socda hadda kulamo xoogan oo gaargaar ah oo ay yeelanayaan golaha mustaqbalka kuwaasi oo ka socda xindaabka xalane iyaga oo ka arrinsanaya arrimaha doorashooyinka iyo sidoo kale ajandayaasha ay miiska la tegayaan xubnaha mucaaradka ayaa doonaya in qodobo rasmi ah oo ay isku raacsan yihiin heshiisna ku yihiin ay la tagaan filla soomaaliya si madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay ula fadhiistaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa u muuqda nin markaasi isagu aan markaasi qabin wax cara ah ama deg deg markaasi aad u xoogan oo ku aadan nooca markaasi wada hadal ee uu la yeelanayo xubnaha golaha mustaqbalka ayaana u muuqda markaasi in ay iyagu si aad ah wakhti ugu bixinayaan sidii loo gaari lahaa heshiiska madambayska halka madaxweyne xasan sheekh maxamuudna uu yahay nin waxaasi aan damba ka lahayn wixii soo kordha wararkeena dambe ayaad ku daawan doontaa aragtidaada qaybta faallada ku dhibo suuragal ma tahay in dhinacyada ay heshiiyaan mise waa lagu kala tegi karaa